haatana waxaan la gaaray waqtiga soo dhaweynay mikrofoonka gudoomiyaha xisbiga UDS Ismaaciil Cabdi oo noo sharaxa xisbiga ujeedooyinkiisa kabacdina waxaa la gaari doonaa waqtiga su'aalaha ay weydiinayay si walba si fiican u wixii su'aalaha ay diyaarso Ismaaciil soo dhaw mahadsanid cabdu horta marwooyin iyo madaxyaalba waa salaamati waxaan dee waa mahad baan inii maarata waxaan wadaa marinayaa soo dhawaystan aad maaragtay nagu soo dhawayseen halkani iyo dee sida badaqadeed maanta maarata waxaan ku dhahdaa shirkani aan ku qabanay montan saa uga soo qeybqaadatay horta farxaan maaragtay siciid wuxuu yidhi ururku looltanka madaxweyne ee 2016 ayuu ururku ku tali jiraa inuu ka qayb qaato inta uu ku daray magaranaysaa inuu Ismaaciil waxaa jira waa dhalinyaro badan ayaa jecelahay halkan maaragtay maxaa dhadaa dhalinyaro badafa Ismaaciil waa nin weyn weeyaan kolkaa inay dhalinyaro waa gabadha waxaan arkayaa Idris dalay waa inay dhalinyaro soo baxdo ururka iyaga haddaan mid ula laawinaya waa urur aan doonayno inuunan urur in madaxa oo dul fadhiya oo yidhaahdo ururkani anigaa soo dhistay anigaa dul fadhiyaya anigaa hogaaminaya ilaa dharaarta aan dhimanayo inuunan ahayn laakiinse urur dadooda u dhaxeeya marka ma garanaysaa maxaa ku dhahdaa congrega aan samaynayna in maaragtay maxaa ku dhahdaa dad badan ay maaragtay ka soo qayb qaataan kolka ninkii oogan ma garanaysaa doonaya inuu ururkan hogaamiyo welcome waxaan horta maaragtay hore iga yaraa sheekeyntoonaa maaragtay maxaa dhahdaa ururkan UDS ujeedadiisa ma garanaysaa iyo wuxuu maaragtay ujeedo UDS horta waxayaan waa urur doonaya in uu wadanka ay ka dhacdo dimuqraadiyad runa dimuqraadiyad dadku shicibku uu hogaamiyo wadanka shicib uu ka qayb qaato talada wadanka wada ilaa iminka waxaanu aragnaa wadan uu ka taliyo oo dadka shicibkii wax allo wax ay ka ku biirsan karaan amba ay ka odhan karaan ayna jirin annagu waxaan rabnaa inuu noqdo wadanku wadan nin kaste iyo gabadh kasta oo reer Djibouti inay waraahdeeda iyo fikraddeeda ay ka dhiiban karto oo dadkooda wada sameeyo haddii aad maaragtay dastuurka wadanka u yaallo haddaad aragtaan horta waxaasoo dhan wada dhigaya haddii nabiyada baragteen mooyaane dastuurka sida uu qoran yahay dee waxaad socon haddii dastuurka wadanka lagu wadi lahaa dee dhibaata ma jirteen oo inagu halka ma nimaadneen dee siday sheegaysay ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa ina Idris dee ceeddeed iyo maaragtay maxaan ku dhahdaa dhulkeedii quruxda badnaa ayay iska wada joogi lahayd maxaa barafkayna keeni lahaa ee si wixiyaan wadanka dastuurka u yaalla kolkaasi waxaan oleedahay wixiyaan waa wadanka waa in dastuurka la sameeyey uuna noqon wax maaragtay maxaa ku dhahdaa xashad ku qoran oo meel iska yaala ee si wixiyaan in wadanka maaragta wadanka horta wixiyaan dadka bini aadamkee ku nool waa inuu ka helo waxa uu rabo waa inaad shaqo ka hesho waa inaad iskool ka hesho waa inaad saxab ka hesho haddii aanad intaasi wadan aanad ku haynin dee horta wadan ma aha wadanna ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa marka uu dadkiisa uu maaragtay maxaan ku dhahdaa shaqogeliyo saxadiisa u siiyo markaasuu maaragtay ku dhahdaa wadan badan sidaan maaragtay ku dhahdaa hore usoo sheegayba waa in dadka wadanka ku dhashay rag iyo dumarba ha ahaadaan in laga tixgeliyo
xukuumadda oo ay ka qayb qaataan nolosha waddanka ayaa maarata ordaa abo waata aan doonaynana annagu haddaan maarata ordaa idilees haddaan nahay in waddanka magaranaysaa lagu dhaqo حقوق الإنسان. هل ما تفرض والله واحد فرحي ما تفرض رئيسي ورد كهدي ولها ورد وده كذب بعشرة. قلت إنك استوى تدبر تدبر أيام وده كبتونا. قل كا وده كلام توحى مش قال قبيل. وده قبيل ماشى ما يستوى. توقف أيام ماشى يستوى. kolkaasi dad badan baa meesha magaranaysaa maxaa ku jiro waa laga hadlayay magaranaysaa maxaa rabaa waa afarta ahaato dadka kalena ha ahaato magaranaysaa dad horta waddanku markuunan maad xoordaa uunan xaq lahayn waddanku markuunan xaq lahaa xuquuq maad xoordaa uunan ku salaysiin dee dad oo dhan buu dhibaatay ciday doonta ha noqoto xitaa maarata maxaa odhadaa waxaa la yidhahdaa meesha qabiil baa haysta qabiilkaasina xitaa waxba kuma haysto afar qof magaranaysaa ayaa meesha ku qaweysata afartaa qof baa wax ku qabta ee intooda badan waxba kuma qaban haddii dastuurkaan iyadana kusoo noqdo wuxuu odhanayaa horta dadka inaad ku dhibaataysan maaha qabiil inaad ku dhibaataysan maaha diin inaad ku dhibaataysan maaha dee in aad qofka bini aadamkii reer jabuutiya dhibaato aad u geysato ma garanaysaa ma ay maad xoolaa meesha ii taalama waxaan rabnaa in siyaasadda dadkoo dhan ay uga fikaato in ayna noqon magaranaysaa maxaan ku dhahdaa ismaaciil cumar uu yidhaahdo ururkaas iyo ururkaas iyo hebelkaas iyo hebelkaas ayaa maaragtay maxaan ku dhahdaa aan u ogolahay oo ninkii reer jabuutiya iyo haweeneydii reer jabuutiya haddii ay doonaysa inay ka qayb qaadato nolosha siyaasadeeda waddanka inay ka qayb qaadan karto waddanku waa inuu wada furaado rag iyo haween waan ognahay magaranaysaa haweenkeedu inay ka maqan yihiin magaranaysaa siyaasadda waddanka adduunyadana waxaa la sheegaa waddan wuxuu hore u mara marka uu dumarkiisa tixgeliyo markuu maaragtay maxaan radaa dumarkiisa uu dhaqaalahooda iyo maaragtay maxaan ku dhahdaa educationkooda sare markuu u qaado markaasuu waddan hore u mara waxaan weydiisanaynaa in dee waad maqashaan magaranaysaa had iyo jeer waad aragtaan dadka jabuuti jooga magaranaysaa iminka macaarid iyo maaragtay maxaan ku dhahdaa iyo dad kale oo maaragtay kasoo horjeeda dhibaatada maaragtay waddanka ka jirta in had iyo jeer la xidho kolkaa waxaan leenahay qofka bini aadamka halkana laga hadlayay siyaasad amba fikrad uu dhiibtay in lagu xidho maaha waddan wuxuu hore u maraa marka maaragtay maxaan ku dhahdaa fikrad iyo olaah waa maaragtay la isdhaafsado markaas yaa hore loo maraa oo maaragtay maxaan ku dhahdaa hore loo socdo dastuurku wuxuu leeyahay qof bini aadama laguma samayn kara jirdil qofka maaragtay maxaan ku dhahdaa bini aadanka lama dhibaatayni karo dee dagaal kastana waynu aragnaa oo waynu maqalnaa dad baa la xidhay dad baa la dilay dad baa maaragtay maxaan la dhibaateeyey dastuurkuna wuxuu dhigayaa waxaasoo dhan inuunan maaragtay maxaan ku dhahdaa dhici karin oo in maaragtay maxaan dhahdaa kasoo horjeedo xeerka waddanka yaala waxaan kale weydiisanaynaa in dadka macaaridka ah iyo dadweynaha maaragtay maxaan ku dhahdaa waddanka ku nool in la wada fadhiisto oo waddankani sidii waddan xaq iyo xaqooq ku dhisan oo ku dhaqmaya looga dhigi lahaa in dadkaas umar loo wada sheekaysto taasi waa intii ururkii iyo magaranaysaa maxaan ku dhahdaa dee waxaa ujeedada iyadoo ay tahay iminka waxaan idin yara maaragtay maxaan ku dhahdaa taataabanidooda dhaqaalaha waddanka horta jabuuti anigoo 16 sannadood ka soo noqon 9 baan ka yimiday 2010 baan ku noqday waxaa iga yaabisay dhulkan marka la joogo dee kurska waxaan maaragtay maxaan rabaa la yidhaahdo nasdaaga iyo maaragtay tsx iyo maaragtay yaa la eegaa
oo dee dhaqaalaha marka laga sheekeynayo magaalada Jabuuti port ayaa war maanta muu soo galay markab kuntu markab soo galay ayaa la yidhaahdaa wallaahi maanta xarakaan ayay wadankii yeelanaya dhibaatada weyn ay haysata waa port ayay magaalada xarakaadka magaalada Jabuuti ay maanta wada ku xeelta kolkaa dhibaato weyn ayaa dhaqaalaha ka jirta wadankii wadanka maaragta waxaan radaa lacagta uu maaragtay beed soo saaray waa 2.2 maaragta waxaan radaa million dollar waa estimation weliba waxaan maaragta waxaan radaa ka soo saaray document Djibouti qofka maanta reer Djibouti $2,600 iyo sanadkii kolkaasi waa estimation iyadana ma garanaysaa waxaan ku radaa magaalada Djibouti ayaa maaragta waxaan radaa iyadana samaysay laakiin soo kale tusi doonaa oo maaragta waxaan radaa World Bank iyo maaragta waxaan ku radaa hay'ado kale ay maaragta waxaan radaa ka sameeyeen qofka maanta reer Djibouti 60 ayuu yahay maaragta waxaan ku radaa marka isbedelka bigiisa maaragta waxaan qofka ilaa 60 sanadood ayuu maaragta waxaan radaa noolaada niveau de pauvreté waa poor levelka reer Djibouti boqolkiiba 42 ayaa dollar wax ka yar magaalada Djibouti maanta ku nool haddaad eegto shaqa la'aanta boqolkiiba 59 ayaa maanta magaalada Djibouti bilaa shaqa marka aad maaragtay miyiga iyo magaalooyinka garanaysaa ka baxsan magaalada Djibouti markaad aragto waa boqolkiiba 83 ayaa bilaa shaqa Djibouti maanta iidahash waxaa la yidhahdaa beriga hore mataqaanaa waxaa dhaqaalaha unbaa lagu leegi jiray wadanku qadiyadda uu maaragtay soo saaro ayaa dadka loo qeybin jiro markaasaa loo leegi jiray dee boqolkii maaragta waxaa kun dollar magaranaysaa hadduu soo saaro dee wadankaasi magaranaysaa dee dadkiisi way fiican yihiin iminka lacagta uu soo saaro u maahay 3 wax baa la isku daraa lacagta tacliinta iyo saxadda kolka intaa la isku daro 3 kun marka 173 wadan ka wuxuu noqdaa 149 waxay naga dambayso soddon wadan wax ka yar ayay naga dambaysa ma garanaysaa innagu waxaan nahay ka 149 ayay waxay ka dhigan tahay dhaqaalaheedu aad u hooseeya saxadeedu way liidataa iskoolkeedu aad u isaga loo liidaa wadanka lacag badan baa soo gashay horta Djibouti laakiin si inta badan waxaa la wada lacagtaasi inay tahay lacag aan maaragtay maxaan ku radaa innagu aynu samayno inta badan waa lacag la iibna maaragtay maxaan ku rahdaa ama wadan u qaato 2006 lacagta maaragtay wadanka lagu leeyahay waa 428 malyan oo dollar ayaa wadanka garanaysaa maxaan rabaa inuu wadankeenu horta wax badan ka soo saaray wadankaasi waxay ku dhacday ilaa wadanka marka lagu fikiro ee la yidhaahdo waa muxuu yahay qadiyadiisu ee la isweydiiyo ee lasoo fadhiistay la yidhaahdo waxaas weeyaan waxa qadiyadeeda ay xooga ku saarto ayaa markaasi magaranaysaa dee dhaqaalaha meel la gaaraan wadinka arkay waa 80 malyan ayay maaragtay dibadda inooga baxday 470 oo malyuuna waa waxa maaragtay maxaan ku radaa dibadda aynu ka keenay kolkaa maaragta ku radaa waa balance magaranaysaa maxaan ku radaa export iyo import ee wadinka arkay waa deficit ayaa meeshii magaranaysaa ka jira iskoolka boqolkiiba marka maaragta ku radaa waa alphabetisation dadka maaragta ku radaa iskoolka
boqolkiiba 70 ayaa lagu tali jiraa in 2015 in maaragtay hordaa ay noqoto boqolkiiba 70 waxay ka dhigan tahay 2015 soddon boqolkiiba 30 yaa bilaa iskool caruurta Jabuuti maanta ku nool iskool hoose dugsiyada hoose boqolkiiba 32 ayaa marka maaragtay hordaa waddankoo dhan la eego ayaa maaragtay hordaa iskool maanta loo hayay kolkaas kalena dhibaatada weyn jirta dadku isku wada maaragtay hordaa mid umooda dugsiyada hoose magaalada waxaad moodaa inay inkastoo ay ku fileen laakiinse meelo badan bay ku kala yaalaan kolkaa caruurtu marka ay dugsiga hoose tagayaan meel ay lugta kaga gaari karaan ayay tagaan dugsi sare markay soo gaaraan waa dhowr dugsi weeyaan caruur badanoo waxaa jirta maanta aanan dugsiga sare tegi karin waxaana taa keentay inaynan haysanin lacagta ay baska ku qaadanayaan ay ku tegayaan Jabuuti dad baa maanta halkan waxaynu u wada inteeda badan dee maanta waxaan uladaa cabinteena halkan aynu keenay anigu markaan halkan imanayay waxay ahayd halkanaan ciyaalka waxaan usoo doonay saxad iyo iskool maanta Jabuuti dad baa kala doorta war $100 ma bas baa ku raaciyaa bariis ayaa lagu soo yiri waa waxdii maaragtay maxaan ku dhahdaa min subxaanallah markaad kala doorato cuntadii iyo iskoolkii dee dhibaata maaragtay ku dhahdaa meesha dhibaatada weyn ay kale jirta maaragtay ku dhahdaa maanta magaalada Jabuuti ayaan wadannadu waxa ay ku socdaan waa statistics ayaa jira oo meel loogu tagaa 2010 markaan aan tegay waxaa jirtay islaan maaragtay hordaa ka socotay UNDP habeen baan wada sheekaysan war waxa weyne aniga dhibaatay ina haysta bay ku leedahay meel qura oo ugu tago wax qoran oo statistiga magaaladaasi marka waayo kani waa rapoor maaragtay hordaa waxaa sameeyey dibad ka mid وزارة ما تحرضها يعني economy وزارة أيام السمايسي ما تحرضها report أو أورانيسا وحيابا بدل ما كشيان وحكا سوساري ويني أما كم كان report غانا سماي بس لين أنو حاجاتنا ويني statistics حاجات وطاق hadalkii waxaan maray waan maaragtay inagu soo inagu yarabayey waxaan horta maaragtay hordaa kusoo gabagebayaya dhibaata way jirtaa laakiinse kama dhigna dhibaatada lama xaliyi karo waddanku wuxuu u baahan yahay dad u fikra waddanku wuxuu u baahan yahay dhalinyar rag iyo dumar bale iyo maaragtay waxaan hordaa dadka maaragtay hordaa macaalinka iyo dadka meesha jooga in la fadhiisto oo la yidhaahdo war waddankeennii dhibaata ka jirta sidee baa dhibaatada looga saari karaa maanta Jabuuti waxaa haysta waddankii dowlad deed qawleysata ah oo ku qaaraabsata ku shaqaysata waddankii oo iyadu dee maaragtay maxaan ku dhahdaa dadka shicibka aynan wax alla wax ka gali jirin oonan maaragtay maxaan ku dhahdaa dadka shicibka aynan dali kaga jirin kolkaasi waxaa maaragtay anigu markaan 2010 markaan tegay daraarban tikada magaranaysaa ayaan maaragtay maxaan raasoo waa meelaha 12 markii ayuunbay dhalinyar malaha dhowr boqol oo dhalinyar ayuunbaa dhan maaragtay xooladaa meel ka soo baxday kolkaasaan yaadoon ismoolay in maaragtay banaanbax iyo wax jiro kolkaasaan idhi war waa maxay waxaan oo dhalinyar waxaa la yidhi jaamacadda ka soo baxay kolkaa aniga jaamacadda way iga dambeysay magaranaysaa markaan Jabuuti ka yimidtay su-aashaydi waxay ahayd markii inay jaamacadda ka soo baxeen war waxaanoo dhalinyara shaqa maa loo hayaa waa maya
waxaan ugu jawaabay islaamay kuwaasay dhufo caruur jaamacad ka soo baxday oo shahaadad soo qaadatay oo la yidhi waa wax alla wax lagu hayaay ma jirto dee waa meesha maxaa waa dhibaata ku yidhi kolkaan jabuuti iminka dhalinyar baa jirta shahaadada soo qaatay oo wax alla waxay shaqa hayaan ayna jirin dhibaatada weyna jirta magaalada jabuuti waxayaan waxa qura ee shaqaaleeya waddanku waa dowlad deegaanadooda waqtigii dowladi waddan dhan shicirkeeda ma shaqaaleyn karto kolkaa waa inay jiraan maaragtay maxaa ku dhahdaa waa the private kolkaa in maaragtay maxaan ku dhahdaa la furo in maaragtay maxaan ku dhahdaa hore loo mariyo in maaragtay dee waxaan hore loo horta daraadhooyi waxaan akhriyay maaragtay maxaan dhahdaa jariido magaranaysaa faransiis madaxweynihi ayaa wuxuu shiriyey qolooyin maaragtay maxaan dhahdaa dowladda iyo kuwa maaragtay maxaan dhahdaa hogaamiyaanka maaragtay warshadaha kolkaasuu yidhi war waddankiinu dhibaata haysata sidee baynu maaragtay maxaan dhahdaa ugu horumarin karnaa kolkaasuu yidhahda horta wixii maaragtay aynu ku fiican nahay aynu soo saarno aynu sheegno aynu dadka gaarsiino ta kale wuxuu yidhaahdeen waa in dad dibadda magaranaysaa ka imanayo waddankii dhaqaale gelinayo iyadana waa inay tahay maanta magaalada jabuuti qof bini aadam dad kale oo dibadda iska yimaado iska daa intayna meeshaa fadhiyo haddii magaalada jabuuti maanta aad tagto tidhaahdo war lacag yar baan hayaa fikradna waan hayaa waxaan doonayaa inaan waddanka wax soo geliyo horta cidiba kula hadlayso haddii lagula hadlana sida aad u meeraysanaysa u duubayso ayay lacagti iyo kabihii iyo wax kasti kaaga dhamaan kolkaa meeshii dhibaata jirta dee waxayaan dad aanan u fikiraya wayaan waddankii horaha loo maray haddii taasi ay meeshii ku jirto in unbaa maqanaysaa hore loo leeyahay ilan waddankii fikradi kama maqan dhalinyar badan baa joogta anigu markaan tagay magaranaysaa dhalinyar jaamacadda ka dhigta kuwa maaragtay digriyo waaweyn haystayaa dafa laakiinse cid wax ay weydiinaysaa ma jirin cid wax ku daraysaa ma jirin kolkaasi intooda badan iminka waxay sameeyaan dewayimid anigu maaragta waxaan oran macallimaan ka ah jabuuti sanadkii hore laba yaryaroo maarta ku noqdaa aan ugu dhigi jiray markaan cabdisariix ka dhigay ayay la soo hadlay mid wuxuu maarta ku noqdaa computer science ayuu PhD sameeya oo basanfon faransiis ku jooga mid kalena maarta ku noqdaa ingiriis ku jooga oo labadooduba magaranaysaa maxaa ku noqdaa midna waa civil engineer weeyaan war waxay yidhahdeen magaranaysaa maxaa ku noqdaa sidee markana loo iman karaa maraykanka kolkaasaan yidhi waa idinku waxaas u shahaadaysatay ma dhulkii tagtaan war kuwii laga horreeyey waxba kuma hayaan kuween maxaa ka doonayna kolka waxay ka dhigan tahay waxayna maaragtay maxaan ku dhahdaa aynu naga tegaya dee dadkii maskaxda lahaa ee waddanka horumarin kari lahaa ayaa maaragtay ku dhahdaa waddankii ka tegaya laakiinse ismaaciil cumar dee uma baahna kuwaas hadday kaa tagaan wuxuu ku leey booq baa kaa maqan waxba kaa oge kii fikiraya wax maaragtay ka sheeg waxaan kaa maqnaa kaa kale in magaranaysaa maxaa ku dhahdaa dee anigu dhibaateeyey hoos jooga dee kaas ma garanaysaa hoos jooga kolkaasi maaragta maxaa dhahdaa waa waddankeedii magaranaysaa dhibaata magaranaysaa iyo maaragta ka jirta isa kama dhigna wax la xadidi karo maaragta ku dhahdaa wax la xadidi karo waxaa lagu baahan yahay in dee horta maaragta maxaa dhahdaa uraaxdeeda iyo ururada magaranaysaa dee macaaridka ah ee maaragta maxaa dhahdaa waddankii in horta la xoojiyo in maaragtay meesha aad joogtaanba aad ka hadashaan in aad maaragtay maxaa dhahdaa weliba imika waxa weyn ee waddanka iyo horta dadka meesha markaa xukuumadda haysta dhibaateyn kari
وواحد ميديا سوسيال واحد هذا ما قلنا سامع عند فيسبوك ها عند تويتر ها عند ما رأيتي جوجل ما رأيتي حوالها واحد وثاء مركب أي أركان واحد يقولي حد يجروي إعلان ما تكون هذا وحياة ولا قش كيني من هذا ما تكون هذا بريء أنا جبت جوي وقلنا إنسان وهذا ما تكون هذا معارض كان كو مركب ملحة جريدة بسوس هاي جريدة داسي أرار كستي أيوب إسماعيل أربعة وقت آخر سنة دارار كستي أيوب جريدة داسي ما أنت أنا محي كوح ما أنت أنا محي وياه ما أنت أنا محي صوصاري كل كاسي قريتانك وواحد مهمة وواحد مقرر إنسان هذا أنا لا ما تفهم هذا لقى تدعو لصميل أي ما تفهم هذا أنا ما تد واحد لا يهبر كبسولة ولا ورو كان يوفي وين هيدا الكرير تقول شنو ده أنتو طلب هذا دورها هذا فقها هذا عربها هذا عفرها هذا صوماليها هذا حبشيها هذا طلياني إنكي غير جبوتي شيء غنيا وضع كاسي لكن سدون يئلو وحكا بدلو دون يوضع كاسي إنو وضع حق ونوضع تذكر غير جبوتي ولا بحية أنتو دونوها نوضع وكفرية هي وضع مارتي وأردن كفرية هي وكسوة إقامة كنتها هذه المارتي محامل الله جل وعلا وقوقنا هو وضع كان وأردن لإنا الهجانية دوني